asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan jimco wanaagsan sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka aynu kula wadaagna sheekooyinka dabcan bollywoodka koonfur hindi maxaa ka cusub fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan sabskraabi noo saar saaxiibada joogtadana ugu xira muuqaalka noo sheergareeya waxaa marka koowaad ku bilaabanaa innaba caadima wax taariikhiyu sameeyey filimka lagu magacaabo valimai iyo sidoo kale superstar ajid kumaar maadaama uu noqday filimka ugu bilaabashada wanaagsan taariikh ahaan dabcan tamiin laduul laga daawado ayadoo dabcan shala maalin khamiis oo maalin shaqeed ama working day ayuu dabcan rikoorkan sameeyey thaala ajid kumaar taasoo muujinaysa ninkan awoodiis inaan loo geli karin sida ishaaca ka qaada shabakada boxbisandii valimai wuxuu soo xareeshay in 20 karoor lacagta nadiifka tamiin laduu oo ku dhawaad gaaraysa lacagtan ilaa iyo 30 karoor canshuurta ka hor daawadayaasha qiimo badan sidoo kaletana guud ahaan hindi idin lacagta nadiifka wuxuu kasoo xareeyay filimka valimai 30 karoor ayuu kasoo xareeyay lacagta netka ayaa laga hadlaya ajid kumaar wuxuu muujiyay awoodiis inaan loo geli karin sababtoo filimkan wuxuu sameeyay wax historic ah sidoo kale wuxuu ka tilaabay filimkii anathia rajnikanti sameeyay oo la daawaday feestadii diwaali November 2021 kaasoo soo xariyay 24 karoor lacagta nadiifka ah sidaa darteed valimai waa filimkii ugu horeeyay tamiil ah oo tamiil laduul laga daawado oo 25 karoor nadiifa gaara maalinkiisa koowaad kaalin saddexaad waxaa ku jira filimka sarkaar uu sameeyey ninka lagu magacaabo Vijay oo 23 karoor lacagta nadiifka soo xariyay 2018 maalinkiisa koowaad feestada diwaaliga ahayd sidoo kale tana bigil oo 2019 la daawado isagan wuxuu soo xariyay 20 karoor lacagta nadiifka feestada diwaaliga ahayd sidoo kale kabali oo 2016 la daawado isagan wuxuu soo xariyay 19 karoor bar waxaa la mid ah filimka lagu magacaabo master oo asagana 19 karoor bar soo xariyay thaala ajid kumaar markuu uu soo laabtay 3 sano kadib wuxuuna dhigay rikooran caadi ahayn dhinaca kale markii la fiiriyo all indie business waan ka hadlan 30 karoor lacagta nadiifka soo xareeyay laakiin markii la daawadayaasha qiimaha badan canshuurta ka hor wuxuu keenay filimkan 31.70 karoor kana si diiwaan gashan lacagta ugu badan tamiin la duu ka soo xareeyay 30 karoor ka keenay canshuurta ka hor taluu wuxuu ka soo xareeyay 1.30 karoor qaybta findig aad u liito wuxuu ka soo xareeyay 15 lag dhankaasi markii la fiishay karnataakan wuxuu ka soo xareeyay ku dhawaad 10 lag ayuu ka soo xareeyay saadartay markii wadarta guud 31.70 karoor keenay canshuurta ka hor sida muuqato suuqyada caalamkana si adag kaga gadma ganacsigiisa weli xisaaba ku socota laakiin haatan waxaa shaaca laga qaaday 10 karoor bar inuu kasoo xareeyo suuqyada caalamka taas oo ay ka dhigantay ganacsigiisa guud dibad iyo dalmarkii isku daray waxaa loo yaqaano World War Gross filimka lagu magacaabo valimai maalinkiisii koowaad wuxuu keenay 47.50 karoor ayuu soo xareeyay waana bilaabash excellent ah filimkan waxaa laga rabaa dabcan laga bilaabo maanta jimco ah ilaa weekend axadda inuu si adag u gadmo si dabcan inta badan lacagtu soo celsho maadaama shaqo badan u taalo oo lagu iibsaday filimkan lacaga fara badan ilaa iyo dabcan gaarayaan 96 karoor saaxiibada qiimaha badan aragtidiina ka dhiibta marka thaala ajid kumaar iyo filimkiisa valimai sida holaca u gadmay day 1 day 2 markii aan fiirno daawadayaasha qamada filimka wuu iscelinaa capacity ahaan markii la fiiriyo sidii dabcan maalinkiisa kuwaada holacu ma ahan laakiin xoogaa sidii uu dhaamaa hoos u dhac waalim uusan sameyn taasoo ka caawin karto maalinkiisa labaad qiyaasta xilliga hore inuu keeni karo lacag 15 karoor haddii uu keeno 15 karoor nadiif waxay u tahay guul lixaad leh sababta wuxuu keenay filimkan 30 karoor nadiif uu keenay dhammaan luqadaha kala duwan maalinkiisa kuwaad haddii 15 karoor uu keenay day 2 oo jimcaha wax la aqbali karo ayadoo sabti axad u harsantay marka aragtidiina ka dhibtay ajid kumaar iyo wacdaraan caadigan uu dhigay bal markaana diiradda saarno bawan kaliyaan box vicindia ka yaabto waxay dhahan ninkan xilligii xataa waxay dhahan jeestoole iyo jiran jeeb fanki hindiyasta waqtigooda ugu fiican ay ku jireen waxaanoo kale ma aysan samayn jirin saa darteed waxay dhahan ninka lagu magacaabo bawan kaliyaan waa in qaanad gaar la gelshaa maalin koowaad wuxuu u sameynaya waa wax historiga dhammaan marka la fiiriyo magaalooyinka ugu waaweyn dhankaas iyo talugu ku yaalaan haddii ahal nizam iyo andhra pradesh filimkan wuxuu garaacaa 99 boqolkiiba ilaa 95 boqolkiiba intuu u dhexeyso marka box vicindia waxay dhahan waqti xaadirkan ma jira atooro sidaan kale saameyn u leh ayadoo la ogaay filimkiisa fakiil saab sanadka hor markii la daawana fakta kuwaadna si waaliyo ku furmay haddana wayba ka darantay wuxuu la imaaday waxaa la earth shattering dhulku idila gelgela meel kasta sidoo kaga furmay talugu waxaan hore loo arkin ayuu sameeyay saa darteed marka waxaa la leeyahay bawan kaliyaan atoore kastoo haatan dabcan ku nool hindiya jaceylkii shacbiyadda u haysta maalin koowaad cid kula tartami karta ma lahan saa darteed marka waxaa la early estimate waxaa muuqato filimka lagu magacaabo Vimla Nayak in ganacsi waali uu sameyn doono bushbaa iska daaya dhammaan filimada talugu ayaa laga yaabaa dhawaanahan la daawada gadaal inuu iska marsho filimkan haatan waxaa lagu sharatamaa 35 karoor ilaa 40 karoor inuu soo xarin doono lacagta nadiifka maalinkiisa kuwaad qaabka uu ku furmay marka aragtidiina ka dhiibta bawan kaliyaan filimkiisa subaxda wuxuu ku furmay 80 boqolkiiba galbii wuxuu gaaray 95 boqolkiiba fiidkiina wuxuu gaaray ilaa iyo dabcan boqolkiiba boqol garaaca halka culays haysta xitaa dhankaasi andara markii la jooga ayaa dabcan tigidhka hoos loo dhigay taasoo dhibaato ku imaanay looma geli karo bawan kaliyaan awoodiisa iyo waxa uu sameynayo suuqyada caalamka waxaa la ogyahay galinka hore sharac laga daawaday wuxuuna ka soo xareeyay 870 kun oo doolarka Mareykanka keenay waxa loo yaqaan USA Primary sida estimate hore shaaca laga qaaday haddadan barnaamijka aan soo jeedinayna waxay ku qaadatay filimka lagu magacaabo Vimla Nayak hal maalin barkeedana ku gaaray 1 milyan oo doolarka Mareykanka sida officialka
oo shaac laga qaado marka ninkan wuxuu taagay another level loomana geli karo mass hysteria uu leeyahay dabcan waxaan caadi ahayn sida officialkii shaac laga qaado marka 1 million US dollar ama 8 karoor ayuu hadda dabcan sidan kusoo xareeyay filimka lagu magacaabo Vimla Nayak asagoo weli aan dhameystirin maanta oo jimco ah waxaa la isugu daray laba gelin lacagta uu soo xareeyay shalay iyo maanta ayuu heerkaas ku marayaa saaxiibada qiimaha badan markii la fiirsho marka US Primera iyo lacagaha laga soo xareeyay filimada dabcan ugu badan iyo sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa maalinta koowaad ganacsiga ee loo yaqaan US Primera ama gelinka hore filimada la daawaday kaalintood waxaa ku jira Bahubali 2 ama Bahubali The Conclusion oo 2 milyan dollarka Mareykanka kusoo xareeyay waxaa la US Primera halka Agnestavia oo Bowen Kalyan sameeyay asagana 1.52 milyan uu soo xareeyay dhinaca kale Bahubali wuxuu soo xareeyay 1.36 karoor waxaan soo qaadan karnaa Qilaadi oo 150 uu sameeyay jirin JB soo xareeyay 1.29 milyan sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa Spider-Man Heshbab uu sameeyay 1 milyan kusoo xareeyay US Primera halka dabcan filimkan ka sheekayna Vimla Nayak asagana uu soo xareeyay 850 kun wuxuu barbareeyay Saaho sidoo kalena Sayyara Narasimha ayuu ka tilaabay marka Bowen Kalyan ninkan waa mucjiso waa la qiray ninkan hadduu heli lahaa filim tayo wanaagsan waxaa la cid celin karta malahan saa darteed marka haddii excellent movie oo sheekadiisa 100% tayo 4 xidig la siiyo dool imaan la waxaa la leeyahay ninkan lagu magacaabo Bowen Kalyan wax waa liiw sameyn lahaa sanadii ugu dambeysay waxaa la fakta koowaad weekendiga lacag waa liiw sameey filimkiisa laakiin inta badan hoos dhac waxay u sameeyaan sheekada filimka oo liidato bal markaana diiradda saarna filimka Vimla Nayak sheekadiisa maxaa la kan wuxuu u muuqdaa marka Bowen Kalyan filimadiisa dhawaanaha uu sameeyay kan ugu sheekada fiican maadaama maantadan la siinay 3 xidig iyo bar ilaa 4 xidig sidii shaac laga qaaday filimkan naguma cusbo waan daawanay sheekaan waxaa laga soo min guri ayaa banaamka hoshiya mashruuci Malayalamka aan daawanay oo aad iyo aad lagu xifaaltamay saa darteed marka filimkan xiisaha badan wuxuu ka hadlaa si kooban Rana Dugubati oo ku matalayo doorka lagu magacaabo Daniel Seqar iyo Bowen Kalyan oo ku matala doorka Vimla Nayak Bowen dabcan wuxuu ku matalaa askari meel adag halka ninka lagu magacaabo Rana Dugubati uu yahay nin ganacsada awood badan ninka siyaasadda ku jira hore u ahaan jiray mid ciidamada ka tirsan oo qalad uu galay awgeed Bowen u xiray kadib waxay dhahan siyaasiyiinta sii daay markuu uu sii daayay wuxuu ceebaysana ninka lagu magacaabo Rana Dugubati ciidanka asagoo ka duubay saldhigga waxyaabo la xiriiray qamriga waxyaabo xun ka duubay kadibna wuxuu dhigaa social media meeshaas waxaa ka bilaabana marka dagaal dhexmaray Rana iyo sokal marka fiirsha Bowen Kalyan oo filimkan loo daawanay xifaaltanka dhexmaray inaba caadi ma bandhiga uu sameeyay Bowen Kalyan dabcan wuxuu la imaaday jilin kale oo heer sare ninkan wuxuu muujiyay in lagu gaari karo marka noqdo doorka xanaaqa iyo sokal isla weyninka iyo marka la fiirsho waajibaad gudashada halka sidoo kale Rana Dugubati asagan u qaata kaalin kale oo saameyn leh filimkan wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka cusbada u yeelay maadaama ku soo bandhigay awood iyo kibir iyo sokal dabcan shakhsi isla weyn darteed marka laba isla qob weyn ayaa filimkan isku heleen qof kastana kaalintiisa ayuu qaatay hubanti ahaan ma kala dhacaan inkastoo Bowen Kalyan filimkan hogaamiyay ka yahay haddana waxaa loo daawanaya dabcan isku dhaca labadan ay sameeyeen iyo soo kale xifaaltan ka dhaxeeyo saaxiibada qiimaha badan marka waxaan sugi doonaa Vimla Nayak iyo ganacsiga maalinkiisa kuwad uu sameyn doono maadaama si aan caadi ahayn loo amaanayo dhinaca kale Alia Bada Hindi hasta filimkeeda gangabaadi ka tawaadi waa la daawaday qiimeynta shabakadaha kala duwanaanta average waxaa la siiyay 3 xidig ibar ilaa 4 xidig ayaa la siiyay sababtoo filimkan waxa agaasimay ninka laga dambeeyo Sanjay Leela wuxuuna filim sameeyay ku jira qaanad gaar markay noqoto sameynta filimada tayo wanaagsan kan wuxuu la imaaday mashruuc kale holac oo sheekadiis dabcan ay kala sigtay waxaana hubantii Alia Bad level kale ku gaari doonto sida haatan leey dabcan filimkan wuxuu ka hadlaa koox warqabnaa gabadha lagu magacaabo Ganga ayaa looga sheekeynaa Alia Bad mataleeso oo saaxiibkeed intuu keenay dhankaasi Bombay gobolka soo wadaa kadib daa waxaan noqonaynaa lamaane ama shaqa Bombay ka raasteen dambeyntii laakiin wuxuu keenay intuu qiyaamo goobaha dabcan gabdhaha jirkooda laga ganacsado kadibna uu ka dhumaan waxay gacanta u galaysaa dumar awood badan waxay noqonaysaa gabadh jirkeeda ganacsta laakiin markii dambe xaaladda la qabsanay ugu dambeyntii waxay noqonaysaa haween awood badan oo xitaa dabcan Bombay idil maamusha ayadoo garab ka helaysa ninka lagu magacaabo Ajay Devgan Alia Bad waxaa la imaatay door ka muuqata saameyn iyo aragnimo sababtu waxaa la 100% korosho doorka lagu magacaabo Ganga hubanti aan sanadkan bilad kasta ay qaadan doontaa Superstar Ajay Devgan filimkan wuxuu ku leeyahay 10 daqiiqo oo kaliya laakiin 10 daqiiqo waa holac muuqaalka kooban dabcan wuxuu ku sameeyay saameyn kale oo caadi ah gaar ahaan doorkiisa gangasternimo iyo sida garab u siinaa Alia Bad isku soo duub Sanjay Leela waxaa la mar kale wuxuu la imaaday filim holac oo daawadayaasha ku qasbi doona masrax inay soo aadaan inkastoo corona laga soo laabtay feeska saddexaad lagu jiro oo haddana caqabad kale ay dhici karto laakiin waxaa la filim sameeyay filimkiisa qaabku sheekada u dhigay bandhiga Alia Bad waxay keeni doontaa ama qasab noqon doonta Bombay dad ku nool iyo dhammaan gobolada kale Hindiya in filimkan u hagar bixin doona markii ay noqoto daawasho saaxiibada qiimaha badan haddii aan soo qaadana filimka lagu magacaabo gangabaadi ka tawaadi shabakada box office waxeelada wuxuu la imaaday bilaabasho wanaagsan 20 ilaa 25% subaxda hore ku furmay mashruucana meelo badan wuxuu kaga fiican yahay filimkii 83 oo dabiiqadii sanadka Ranveer Singh uu sameeyay waxyaabaha caawina filimkan waxaa qayb ka gobolka Maharashtra si weyn kaga gadmaayo Delhi iyo soo kale magaalooyin kale sidoo kale filimkan waxaa caawina maanta gelinka dambe sar oo ka xoogan uu sameeyay 40 ilaa 45% uu gaaray fiidkin wuxuu maraa 50 ilaa 55% qiyaasta xilli hore waxaa la gangabaadi ka tawaadi waxaa laga yaabaa 8 karoor ilaa 9 karoor inuu keeno waana ganacsi wanaagsan haddii 10 karoor uu gaarno maalinkiisa koowaad
wax weyn ay noqon doontaa. marka Aaliya Bhatt filim tayo wanaagsanna gacanta way ku dhigtay, qaab fiican uu ku furmay. haatan fanka hindi gaar ahaan Bollywoodka rajo fiican gashay markii laga cabir qaadkan gabaadii ka tawaadi sidoo ku furmay iyo waxa laga rajeynayo. ugu dambeyntii waxaa soo baxay filimka lagu magacaabo Love Hostel OTT laga daawaday, kan wuxuu soconaa 1 saac 46 daqiiqo. shabakadaha kala duwan qiimeynta average-ka uu sameeyo wuxuu ku soo fadhiisanay 3 dhibcood. filimkan waxa hogaamiyaalka Sanya Malhotra iyo Vikramti Masai ku matalaan lamaanayaal laba dabaqad kala duwan oo isdooranaya kadib soo baxsanaya. waxay dowladda jinaysaa dhankaas waqooyiga Hindiya hostel oo dadka dhibaatada lagu hayo ama dabcan tacadiida loo geysto halkaas lagu badbaadiyo. laakiin waxaa dhacay ninka lagu magacaabo Dagar oo doorkan u matalay Bobby Doll inay soo adeegsanayaan qoysaska labadan lamaana la dabcan soo dil maadaama sharafka inay ku ciyaareen sababta waxaa la isma geeyaan inay isguursadaan waa qalad. saa darteed marka filimkan waxaa loo daawanaya baxsadka labadan ay ku jiraan dowladda iyo booliska garab ma siin karaan ma ka badbaadin karaan ninka dabcan qof kastoo aragti uu ku arko tooganayo. innaba caalima bandhiga uu qaatay Bobby Doll sababta waxaa la doorkiisa Dagar oo ficil kasta uu sameeyay qof inuu dilo wuxuu dabcan sameeyay 100% u hagar baxay. waliba wuxuu sameeyay awoodaan caadi ahaan dhalinyarada filimkan asiga ka saameyn qaata sababta wuxuu ku leeyahay dooran caadi ahaan. dhinaca kale Vikramti Masai wuxuu muujiyay actorkan doorarka actionka xitaa iyo khiyaanada dhibka badan inuu qaadan karo, halka gabadha lagu magacaabo Sanya Malhotra oo ku soo caanbaxday filimkii Dangal mar kale ay muujisanaatay xidig door kasta qaadan karto hor u socod fiican. ku soo wado filimkan waxaa loo daawan doonaa jiliinkan caadiga ahaan oo ay sameeyeen saddexda hogaamiye sheekada adaga xasaasiga filimkan uu ximbaarsan yahay iyo halka saac dambe oo indhaha aan laga qaadi karin. saa darteed marka filimka lagu magacaabo Love Hostel waa mashruuc kale oo xiiso badan oo OTT ga laga daawaday, fariintiisana la amaanay si gaana leh dabcan Bobby Doll saameynta ku leeyahay doorkiisa xumaanta iyo qamarjanimada uu matalay qof kasta uu dilay ayaa highlights-ka filimkan guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan Bollywoodka koonfur Hindi maxaa ka cusub intaasaan kusoo ileynana. fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar waa ku mahadsantihiin daawashadiina. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.